barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Ibrahim Aadan Qabyo Tire ayaa markii ugu horeysay ka hadlay khilaafka adag ee ka dhaxaloosan golaha deegaanka degmada Burco kadib markii shalay toole xubno kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka oo si weyn uga soo horjeeda duqa Burco ay ku dhawaaqeen inay doorteen maayir cusub. barasaabka ayaa arintaasi ku tilmaamay mid sharciga baalmarsan waxaana uu sheegay in kulan uu la qaatay xildhibaanadaasi ay isku afkarteen in gudida nabadgelyada ay dhexdhexaadin ka galeen khilaafkani waxaana hadaladiisii kamid sida tan golaha deegaanka laba garab uu kala jabay qaybtii shalay saa ogtiin ku dhawaaqday waxa qeyr macquulka qeyr sharciga waanu saragnay si fiican baan soo wareysanay arinta waxna la gartay arintaasi sharci darraay waana ogtiin oo naga baxeen guddi nabadgelyahan oo ku hareerayo fadhiyo guddi nabadgelyada annaga saa ka weernay arinta waxaynu isla garanay inay qeyr macquul qeyr sharci ahayd marka waxa la dooranayo golaha deegaanka cid bedelay ama maayir bedelay sifa sharci uma xeer bay leedahay xeer number 23 ama 3 xeerkaas sheegaya koorumku inuu buuxsamo anigoo gudoomiye gobolka aanayna warqad oo ogolaado koorumkooda markaan keenay buuxo inaan ogolaado oo aan siiyo ogolaansho labada mid ma haysan koorumkuna muu buuxin ana ogolaashay ma haysan laakiin arin cado ay ka keento cabasho ay ka keentay bay ahayd arintaa waxaan isla garanay inaanu si sulxo wanaagsan dhinacii kale ka cabanayeen inaanu keeno ilaahay waa ka odaynay runtii aad baan ugu mahadnaqaynaa xildhibaanada noo yimi si wanaagsan inooga yeeleen ergadeedii gudida nabadgelyada ay u ergootay inay arintaa dib u soo celiso marka saasaan ku dhamaynay sidoo kale barasaabka gobolka Togdheer waxa uu digniin u diray labada garab ee golaha deegaanka inaanay warbaahinta soo fariisanin iyagoo isku tabinaya hadallo isku lida halkan dhammaan ka farayna dhinacyada ama cid kasta oo arintaas in wax dambe saxaafadda Soomaaliya inaanu jirin oo saxaafadda aan cid dambe ka hadli doonin yooyota kii horjooji qalad dhacay baa jiro iyaga laftooda shalay toole dhinaca kale saxaafadda in ay soo adeegsanay soo fariistaan qaladkaasina inaan dib loogu noqon labada dhinacnaba ka yeelmayno yooyotan dambe iyo qalad dambe oo gobolka iyo degmada ka dhaca guddiga nabadgelyaha annaga la wareegnay annaga hawsha dhammaynayna labada dhinacba raalli bay naga yihiin maayarku iyo maayarka xiyunkuna waa kuwii hore dadka tashiish baa galay oo waxay leeyihiin maayar cusub baa la doortay maayar cusub la doortay ma jirto goladeegana caroodu bay haayeen arrintaa waxaan ku soo celinay meeshani miiskii wada hadalkan ku soo celinay waanay dhamaatay maayirkuna waa maayirkeenii hore maayir xigeenkuna waa maayir xigeenkeenii hore systemkii nidaamkii hore wada shaqeynayay Khadar Cabdirasaaq Saleebaan Khadar Hanad shabakada caalamiga ee Wanaag News magaalada Burco.